dalkan qofna lama carari karo, qofna meel ma geysan karo. Waxaa shalay ka tanaasulay oo ah kursigaas in maanta nin uu la cararo kama yeelayo. hadduu yahay madaxweynihii hore iyo hadduu yahay madaxweynaha cusub, ninna qabiilna kuma xigsanayno, ninna qabiilna kuma raacayno. alxamdulilah wasalaatu wasalaam calaa sayidina maxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin. marka hore waxaan rabaa inaan idin wada salaamo dhammaan akhyaarta, odayaasha, xildhibaanada sharafta leh. aan ka bilaabo ganacsatada, meediyaha iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed oo halkaan naga daawanayo oo wada sugayay. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. runtii maanta farxad ayay tahay inaan kusoo guryo noqdo gurigaygii, xaafadaydii, magaaladeydii Muqdisho oo aan ka maqnaa qiyaastii 3 isbuuc aan isleeyahay oo howlo shaqo aan ugu maqnaa. sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa saaxiibada igu heliyay safarka gudoomiyaha iyo ugu horeeyay gudoomiyaha iyo ra'iisul wasaare Saacid iyo gudoomiye Mursal. iyagana waxaan leeyahay waa mahadsantihiin. runtii farxad ayay noo tahay inaan soo wada noqono oo halkaan aan guryaheena ku soo noqono. waxaan u soo noqono waxa weeye in aan isugu imaano wada tashi dadka Soomaaliyeed ee daneynaya siyaasadda Soomaaliyeed ay ugu horeeyaan siyaasiyiintii hore iyo siyaasiyiinta cusub. wada tashigaas oo ku saabsan in maxaa la yiraahdaa xalka Soomaaliya uu noqdo xal waara. sidoo kale intaan taas u guda gelin waxaan rabaa inaan bogaadin iyo hambaliyo aan u jeediyo ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed, ciidamada xoogga dalka iyo maxaawisleyda Hiiraan, runtii oo waayadan dambe wacdaro weyn ka dhigay gobolkaas. waxaana leeyahay reer Hiiraan iyo maxaawisleydooda ilaahay garabkiina ha galo. aniga iyo asxaabta iyo Soomaaliya oo dhan waa idin garab taagannahay insha Allah. rabbigiina waa idin garab taagayaa marka hore leeyahay. haddaan u soo noqdo shirkan aan hadda rabno inaan qayb ka wada noqono oo aan ka qayb galno, runtii waa shir ummadda Soomaaliyeed ay wada sugayaan. runtii dalkan Soomaalidu waxay tiraahdaa xagla geel wax gunta la geliye ka weyn. dalkan qofna lama carari karo, qofna meel ma geysan karo. waxaa shalay ka tanaasulay oo ah kursigaas in maanta nin uu la cararo kama yeelayo. hadduu yahay madaxweynihii hore iyo hadduu yahay madaxweynaha cusub, ninna qabiilna kuma xigsanayno, ninna qabiilna kuma raacayno. shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay dibadda iyo gudahaba in loo istaago dalkan xaaladda uu ku jiro in laga badbaadiyo. walaalkay, saaxiibkay, madaxweynahayga waxaan leeyahay insha Allah annagoo dad qabna ayaan dalkan ka wada sabata bixin doonaa, adigoo raalli ah, annagoo wada raalli ah. waxaana loo baahan yahay Soomaali oo heshiis ah inay wada fariisato, ay ku heshiiso dastuurkii lagu ciyaaray, ay ku heshiiso doorasho waqtigeeda ku dhacdo insha Allah, ay ku heshiiso doorasho heshiis lagu yahay. sidoo kale waxaan hambaliyo iyo bogaadin u jeedinayaa saaxiibada caalamka oo runtii xoogga saaray inay ummadda Soomaaliyeed 30 sano ee u dambeeyay oo dhibka uu hareeyay ee isku hayaan. inkastoo shacabka Soomaaliyeed ay dhibaataysan yihiin, laakiin madaxdooda badanaa ma ay gartaan. marka ay banaanka joogaan way gartaan dhibka shacabka haysto, laakiin markay kuraasta ku fadhiistaan ma gartaan dhibaatada uu shacabku ku jiro. waxaan leeyahay gadaal ha loo soo noqdo, ha la wada fadhiisto. waxaa shalay ka tanaasulay cidna ka yeeli maayo, mana ka aqbalayno dhammaanteen. shirka soo socdana insha Allah shir loo wada ballansan yahay ayuu yahay. wuxuuna bilaabanayaa saan qiyaasay berri dambo. waa kulliyada waa la soo wargelinayaa. wixii ka soo baxana waa wax Soomaali dhan ay wada sugayso. shacabka Soomaaliyeedna dhagaha loo taago, hal loo feejignaado, hana la garab istaago. nabadda ay Soomaaliya ku socotay, hore ugu socotay, iyo dowladnimada Soomaaliyeed, dowlad wanaagga Soomaaliyeed hore u bilowday, hal la garab istaago ayaan idin leeyahay dhammaantiin. dalkan ha loo naxo, dad masaakiin ayaa u badan. haddaana annaga u nixino qofna uma naxayso. bismillaahi raxmaani raxiim. waxaan ku bilaabahayaa mahadnaq mas-uuliyiintii iyo madaxdii kala duwaneyd ee airportka nagu soo dhaweyso waqtigooda qaaliga ah noo hurtay. waa mahadsantihiin. taa kadib haddaanu kasii gudbo, sida aad u muuqato, aad u jeedaan, wafdigayagu waa wafdi ballaaran oo uu oday ka yahay guddoomiyihii hore ee baarlamaanka iyo annagoo ah 2 prime minister. waxaanu ahaan lahayn hadda ka hor 3 prime minister iyo guddoonka baarlamaanka. waxaa sabab macquul ah nooga cudur daartay, anna filaynaa hadday u suura gasho inuu naga daba yimaado prime minister Cabdiweli Sheekh Axmed oo sabab cudurdaar macquul ah nooga haray. anna rajaynayno hadday u suura gasho inuu naga yimaado. danta aan u nimid waxa weeye
dan dhaqanka siyaasadeena Soomaaliya ku jirta oo ah sanadka ugu dambayso electionku markuu yimaado waxaa yimaada khilaafaad la xiriira electionka iyo dimuqraadiyiinta dalka waxaanu u nimid oo muhiimaddeeda ugu horeysa ay tahay arrintaa iyada ah inaan fikradeena ka dhiibano sidoo kale sidii loogu midoobi lahaa dagaalka khawaarijta oo guul degdeg ah oo Soomaaliyeed looga gaari lahaa arrinta hore oo ah electionka iyo dimuqraadiyiinta dalka oo muhiima ilaahay waxaan ka rajaynaynaa wax dalka iyo dadka anfaca inaan gaarno waana fududaynaynaa waxaan cidna jawfal ku ahayn si guud dadkoo dhan dan uga ah inaanu ku dhamaynaan rajaynaynaa waana u hagar bixi doonaa inta aqoontayada iyo garashadeeduba ay tahay halkaas ayaan kaga baxayaa dantaan u nimid iyo intaanu nahayn iyo sidii ahaydba waa sidaas alxamdulillahi wasalaatu wasalaamu calaa ashrafi alanbiyaai walmursaliin sayidina muxamadin wacalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin marka ugu horeysa waxaan ka mahad celinaynaa soo dhoweynta marka labaad imaashaha annaga wuxuu la xiriiraa la tashi sidii loo heli lahaa fikir midaysan oo looga hortegi karo khawaarijta maalinba maalinta ka dambaysa isoo ballaarinaysa qodobka labaad in la helo in xal loo helo yacni wada tashi in la helo loogu raadinayo xal in loo helo khilaafaadka ka dhexeeya dowladda federaalka iyo qaar ka mid ah dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah iyo siyaasiyiinta ka aragtida duwan dowladda sidii loo heli lahaa shacab iyo dowlad midaysan oo dalkooda difaacan kara aadi kara doorasho heshiis lagu yahay